kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii maawalada dhallaanka oo ka daawataan channelkan YouTube ku leenahay ee dhalaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekadana waxay qayb ka tahay taxaanaheennii muddaba soo socday ee sheekadii ku saabsaneyd boqorada rooda timadahabley iyo islaantii musixirada ahayd ee Kamiila waana qaybtii shanaad ee sheekadeennan sidoo kalena waa dhammaadka taxanaha rooda timadahabley sheekadana waxay joogtay intii la socotay afartii qaybood ee sheekadan ku horeysay iyadoo afartii boqoro ee iskaashaday oo boqorada rooda timadahabley iyo boqorada ayaan oo yana sheeka ka soo maqasheen labada boqoradood oo kale Ramle iyo Rayaan oo mid walba ay leedahay taxana u gaara iyana waqtigooda ay sheekooyinkooda baran doonaa dhanka kalena waxa afartan boqoradood ka soo horjeeda afar musixiriin oo waaweyn kula dagaalamaya doonayaan inay la wareegaan awoodda boqortooyooyinka waana Hela Vega Sene iyo Kamiila afartan musixiriin oo ay ka go'an tahay inay la wareegaan maamulka iyo awoodda boqortooyooyinka iskaashanaya ayaa dagaal u ballamay doonayaan inay ka takhalusaan boqorada iskaashanaya haddaba waxaynu joogtay sheekadeena qaybteennii afaraad intii la socotay iyadoo oo la isku ballansaday dagaal aan waxba la iskula hadheen rooda timadahabley iyo ayaan Ramla iyo Rayaan waxay isku diyaarinayaan qaybta ugu dambeysay ee dagaalkooda waxaana uu dagaalkani ka dhacayaa dalweynaha boqortooyooyinkan iskaashanaya ay ka taliyaan waa waqti samaad habeen wacan xidigahoo dhanna way ifayaan maalmuhuna way ka duwan yihiin kuwii hore u soo maray boqortooyooyinkan waa habeenku sii gaabsadaba iftiinka waaga ayaa soo baryaya rooda timadahabley ayaan Ramle iyo Rayaanna waxay ku shirayaan basriga iftiinka wareegale ee badda dusheeda ku yaala halkaasoo ah goobta ugu dambeysay ee dagaalku ku dhex mari doono musixiradaha iskaashaday waaga ayaa baryay markii iftiinku waagu baryay ayaa biinka timaha rooda timadahabley ku xidhan dhulka u degay si uu duurka midho uga doonto waxa uu soo koray midho bislaaday oo wada casaan ah wuxuuna ka boogsaday jeeg weyn ujeedkuna waxa ahayd inuu boqorada u keeno balse macaanka midhaha oo aad u darna ayuu isagu kelidii cunay marba midh siduu u lahaa cun ayuu dhameeyey siduu kolba qayb u cunayay balse mar kaliya ayaa si lama filaan waxa u soo martay deerayar oo dhal ah waa u eegay wuxuu ku yidhi ma wacan tahay waxay ku tiri waan fiicnay laakiin waxaan ahay dhaawac sideed wax u qabtaa ayaa weydiiyey waanu isaga soo laabtay laakiin deeradu ahay tulluka naafa ayaa u muujisay in dhaawac soo gaadhay markiina waa u dareemay been wuxuuna xasuustay in dhaawaceeda ay wax ka qaban karto boqorada ayaan oo iyada Rabbi hibo u siiyay inay daweyso dadka dhaawacma waxay adeegsatay tamartii ay caanka ku ahayd si ay u toosiso lugta ay ka dhaawacantay deeradu markay intaas samaysayna waxaba ma ahayn deere ee waxay ahayd musixiradii Hela way naxday ayaan waxay ku tiri sideed ugu soo heshay qibtiina xasuusatana sheekadani Hela iyo ayaan waa kuwii hore boqortooyada ugu soo dagaalamay dhulka ayay musixiradii kala jartay kadibna waxay dhulka la goysay boqorada ayaan waxay ku tiri haddii xataa aabaha ku badbaadiyay aniga ayaa tan ugu qurux badan boqortooyada adna waxaad haanaysaa tan ugu foosha xun leh aniguna sidaas ayaan boqorad ku ahay dhulkana ayay la goysay waxayna ku tiri halkaas ayaa tan iyo qiyaamaha ku jiraysa waxay dusha kaga riday markii dhulka la goysay shabag dhulka hoostiisa ku jira oo ay ku xayirtay musixirada Hela wax yar kadibna waxa waayay boqoradii kale ee saddexda ahaa way u yeedheen ayaan ayay wada yiraahdeen balse way waayeen dhan walba way eegeen midba dhan ayay u kacday markaas ayay dhan walba ka qaysheen ma helayaan marka ka dambaysa Ramla ayaa dhaqaaqday jihadii ay ku maqnayd ayaan balse wuxuu war uga keento iyana wax yar kadib waxa la go'ay dhulkii oo waxa la degay halkii iyada la degtay waxayna dusha kaga dhacday shabagii dhulka hoostiisa ku yaalay Rayaan oo mucjisooyinka badda hoosteeda wax ka taqaanay ayaa u tagtay alaalaxay baddu soo tuftay waxayna weydiisay halka boqoradii ku dhaceen alaalaxayda ayaa ku tiri dhulka ayay la goysay musixiradii Hela
markiiba way fahantay way soo carartay intii ay sii maqnayd ayaa Roodatima Dahablina isku dayday bal inay doonto halkii ay ku dambeeyeen iyadoo magacooda ku yeedhayso oo kalba soconaysa ayay ayaga dhex qaaday waxaan horboodayay biinkeedii ay caanka ku ahayd way u yeedhay waxna way arki weyday iyada laftigeedana wax yar kadib waxa la go'ay dhulkii oo waxa la goysay musaxirada heela balse Rayaan oo loo soo sheegay waxa dhacay ayaa oroday waxana adeegsatay tamar ay caan ku ahayd oo mucjiso Rabbi siiyay kor ayay ugu soo qaaday waxayna ku badbaadisay nolosha boqorada Roodatima Dahabley waxayna ku tiri maqal boqoradii kalena halkan ayay ku jiraan oo dhulka ayaa la gooyay waan ku faraxsanahay inaan mar dambe ku soo gaadhay oo noloshaada badbaadiyay wax yar kadibna waxay maqleen dhawaaq dhulka hoostiisa ka soo yeeraya oo leh nabadbaadiya halkan ayay nagu riday oo nagu xidhay Roodatima Dahabley ayaa timaheedii dahabka hoos dhulka ugu turtay si ay ugu daadegto oo ay u areegsato boqorada Rayaanna waxay raacday timihii dhulka ay hoos ugu degtay waxayna lahayd tamar cajiib oo ay ku furi karto waxay doonto markay isku dayday inay in yar furto oo ay taagantii ku leedahay isiga gadaashada dambe mar kaliyana waxa soo baxay waxaysan arkaynin oo cajiib badan leh waxa uu yimi musaxiradii Hela iyo Vega oo iyaduna ah musaxirad kale oo badda ku nool inta badan ay cadaawa dhex martay iyada Rayaan waxay ku tiri Rayaan ma waxaad moodaysaa inaad kaliya halkan joogto intii lugaheedii adeegsatay ay dhagaxaan iyo siiga ku soo sayday Rayaanna waxay isku wareejisay iftiin sida dayaxa wareegayo oo dhagaxaanta ka qabanayay ay soo tuurayso balse inta hawshan dhacaysay waxa mas'uulaaga dhashaha uu ku howlana cunista midho duurka ku yaalay oo cunayay kuwaas oo marka ka dambeysay cunayay marka soo cunana waa si weynaanayo waxa helayay energy iyo awood tiro badan markaliya ayuu noqday mas'uula weyn oo hadda dab daaci kara tufi kara sidoo kalena awood u leeyahay inuu burburiyo wixii loo adeegsado waxa uu yeedhay boqorada Tima Dahabley waxay ku tiri kaalay nacaawi dagaal ay nagu soo qaadeen musaxiradii dhulka inta uu yimi ayuu kaga gariiriyay dabeetana dhagxaan ayuu dusha kaga soo daadiyay labadii musaxirad ee Hela iyo Vega intay hawshaas socotayna Rayaan waxay ka faa'iideysatay inay soo furato labada boqoradood ee ay xidhatay waa Ramle iyo Ayaane banaanka intay ula soo baxday ay awoodeedii rabbaaniga ahayd adeegsatay waxayna dhulka uga soo saartay godkii lagu xayiray balse wax yar markay banaanka soo baxeen afartii boqorad saleen ayaa waxa yimi Camila iyo Sena oo ah labada musaxirada tariya hadda ka nool afartii Camila ayaa tiri haddaad moodaysaa in dagaal ku dhamaaday hadda ay hawshu bilow tahay ma fiiqdeeda caanka ahayd ay Camila adeegsatay dhagaxayay burburisay waxayna ka dhigtay qof weyn oo kalidii socon kara wuxuu doonana dili kara cidina aysan joojin karin waxay ka hor keentay afartii boqoradii ayaa mid walba mucjisadeeda adeegsatay balse ay isaga joojin karaan dhagaxan waxa markii ugu horeysay bay isku dayday Roodatima Dahabley timaheedii dahabka ayay ku tuurtay intay ku martay oo maroojisay ayay ruuxday oo banaanka ku tuurtay waa uu burburay balse wax badan ba ma qaadanin markiiba dub ayuu isku urursaday isagoo intiisa hore ka awood weyn dub ayuu soo kacay indhuhuna ay guduteen markale ayuu ku soo orday Rayaan ayaa markana isku dayaysa bal inay awoodeedii rabbaaniga ahayd ee dabka iyo tamarta ka koobnayd ay kaga hortagto dub ayay u riixday kor ayay u qaaday laakiin tani ma ahayn mid ay xijin karayso aad ayay uga tambatay waxay tiri wuu awood badan yahay ma hayn karo mana difaaci karo Ramle oo awood u lahayd inay la hadasho xayawaanka ayaa u qayshatay duur joogtii oo dhan xayawaankii oo dhan ayaa soo orday si ay u badbaadiyaan markii codka Ramle fahmeen balse wax yar ka hor marka uu soo jiro waxaba maqlay oo uga soo horeeyay mas'uulaagii dhashaha inta uu soo dul taagay ayuu dab ku afuufay oo burburiyay ayuu ku yiri inta uu hulcay ayuu kala daatay balse ma ahayn dhamaadkiisii mar kale ayuu soo kacay isagoo intii ka awood weyn indhuhuna guduuteen waxa uu iska soo jaray dhagax weyn oo doonayay inuu mas'uulaaga dhasha madaxa kaga dhufto dab kasto hadda ku soo afuufana waxba ma tareenin balse Rayaan ayaa awoodeedii rabbaaniga ahayd kaga qabatay dhagaxii inuu ku dhaco mas'uulaaga
dushana ayay uga soo riday mustulaagana intuu markan si fiican u xanaaqay ayuu gebigiisaba qaatay waa uu la duulay 7 sano meel ku dhow intuu la aaday ayuu soo daayay markaas ayuu burburay oo dhagaxii fallad u kala jabay dhulka ayuu ku soo daatay isagoo burbura labadii musaxiradood waxay arkeen inaysan hadda ka guulaysan karaynin boqoradaha waxay arkeen mustulaagii hawada ka soo socda iyo waxay arkeen in awoodoodii loo run sheegay markiina way ordeen oo way dhaqaajiyeen iyagoo baqanaya boqoradina waxay ku yiraahdeen ha intii xayawaanku adeegsadeen ayay sii eriyeen way ku yiraahdeen nabadgeliyo halkan annaga ayaa ka talinayna awoodeenno wada jirtana cidina kama guulaysan karto waxay wada fuuleen mustulaagii dhashaha oo hadda awood u leeyahay intoodaba qaado waa uu la soo duulay wuxuuna keenay qasrigooda caanka ah ay ku shiri jireen halkan ayayna ku dhamaatay oo waxa guulaystay khayrwadayaashii waxa lagu xoreeyay boqortooyooyinkii noloshuna hadda waxay noqotay khayr badan waxaana sidaas lagu fardaamiyay inantii ay ka dhigteen بينك أي سرحان لكن شيء كوين كانوا دني مدعين هدان بقر كي بدأ كودعي إدوت لدكتي عني ريان سوبت بعدين لهين هداني لبدو ويل فاضمة يفارح دونا لهين إن جوري كجها عنان هداني أنت رد غور عسن وشيء لهين تعودي هل كجوري أيدي دي هاي هدان دعي لهين إن تكورنتو وح أدقو أدوني سو هدي أدقرين لهين وحكو غرصون وحلاقي يابي لها إن كون يكو kale aanay dhaceen laakiin tani waa iska hadal oo kaliya maqaadiirta iyo qadarka alla ku qori marna ma badbaadin kartid sidaas oo ay tahay waxay noloshaadu dhan ku xidhan tahay wax alla qoray waxaad si u baahan tahay in noloshaadu dhan aad ahaato ku tawaabushaysta sheekadeenna waxaad ka baratay isku dayga iyo iskaashigu awoodda uu leeyahay iyo wanaaga wada jirku leeyahay wax kasta oo iska kaashatana waad ka guulaysan karaysaa ugu dambeyntiina caruurey waxay roodati madahabli ku soo badbaadisay sida inantii ay nolosheeda badashay musaxiradu sheekaduna halkaas ayay ku soo dhamaatay taxanihiin roodati madahablina inta tan ayaa ku dhayahay waxaanad baratay sidanu sheekadeeni tan ka horeysa ku sheegnayba in khayrku sharka ka guulaysto marka laga hadlayo hadiya jeeraale sheeko maweelada tariyo intaanu ku kulmayna sheekada tan xigta waxaan inta ku dhamaaday taxanihiin roodati madahabli waxaan idinkaga tagayaa tan iyo kulantideena dambe nabadgeliyo waxaan idin rajaynayaa meel kasta aad naga daawanaysaan in waqtigu idin wacnaado isma dhaafno nabadgeliyo haddii sheekooyinkaygu ku cajabiyeen aad ka dhagaysato channelkeenan kuna cusub tahay channelka fadlan